ومالنتي دوني ذو مدو ميلو صبحته ومالنتي دوني ذو مدو ميلو صبحته مقدقي ليس مدنو لحلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن وناكسن دقيقتيال كنا سلوا هذا برنامج قارة وعن وقتلق الله إن أنا كقاعد الله تاريخ ده معلومة حرية الصومالية. برنامج كان أول تاريخ يسوق قبل لابنا يكون شام بقول لواتكي إلا يكون سجال بقول يلحدكي. برنامج كوا حين سوق جدينا يعني جو عبد الكريم آدم حسين. دوني ذو مدو ميلو صبحته ومالنتي دوني ذو مدو ميلو صبحته مقدقي ليس مدنو لحلي. تاريخ ذي هلقنكي إمام أحمد إبراهيم قري كن شنبقل لباتنكي إلا كن شنبقل صدح يافرتكي. تاريخ ذا هلقنكي سيد محمد عبد الله حسن كن سديد بقول سجال إيو سجاشنكي إلا إيو كن سجال بقول لباتنكي. تاريخ ذا هلقنكي أوركا لنيارده SYL أي حرنمدا كداليين كن سجال بقول إيو لحدنكي. برنامج كان واحد سؤروري أو خرالي سكسوها بيجي دكتور محمد إسحاق مرسل. halgankii iyo taariikhdii imaam axmed gurey kun shan boqol labaatankii ilaa iyo kun shan boqol saddex iyo afartankii. imaam axmed ibraahim gurey wuxuu ku dhashay tuulo ka mid ah gobolka harar oo la yidhaahdo hoobato sanadku markuu ahaa kun afar boqol siddeed iyo siddeedankii. imaam axmed gurey wuxuu yaraantiisii ku soo barbaaray magaalada harar. intii uu joogayna magaalada harar waxa uu galay dugsi quraan halkaasoo uu ku bartay quraanka kariimka ah. axmed gurey muddadii uu joogay magaalada harar wuxuu ahaa wiil yar, hase ahaatee waxaa la sheegay inuu ahaa wiil firfircoon oo aad u dadaal badan, ragnimadiisa iyo geesinimadiisana ay muuqato. axmed gurey isagoo aan weli qaangaarin ayuu aabbihiis dhintay, wuxuuna halkaasi ka sii waday barashada quraanka iyo diinta islaamka. intii uu joogay axmed gurey magaalada saylac waxaa ka sii muuqatay ragnimadii iyo inuu yahay wiil aad iyo aad u dadaal badan. markii uu weynaaday waxaa markiiba ka muuqatay heebad iyo urursanaan, wuxuuna ahaa nin fikraddiisu weyn tahay oona leh xeelad dagaal oo ku saabsan nidaaminta iyo ururinta ciidan dagaal. axmed gurey dagaaladiisii ugu horeeyey wuxuu bilaabay kun shan boqol kow iyo labaatankii, hase yeeshee muddo 7 sano ah dagaalada axmed gurey iyo xabashida dhex maray ma ahayn kuwo waaweyn. waxaase jirtay in goob kasta ay guusha ku raaci jirtay axmed gurey. axmed gurey waxay baabi'iyeen ciidankii xabashida markii ay qabsadeen labada gobol ee ugu waaweynaa uguna caansanaa dalka boqortooyada xabashida ee ahaa shawa iyo gojam. dowladda bortuqiiska iyo xabashida khasaare weyn ayaa gaaray ayadoo la dilay taliyihii ciidanka bortuqiiska. dabadeedna muddo ayay isku ururiyeen ciidan iyo hub xoog leh oo si ay u aargoostaan. waxayna kun shan boqol saddex iyo afartankii soo qaadeen weerar dagaal, waxaase jilibka u dhigay ciidamadii axmed gurey oo celiyey. nasiib darro ciidamada axmed gurey uma suurtoobin inay jebiyaan ciidamada labaad ee bortuqiiska iyo xabashida, waxaana halkaasi lagu dhaawacay imaam axmed ibraahim axmed gurey. dhaawacaasi ugu dambayntii waa uu u dhintay isla sanadkii kun shan boqol saddex iyo afartankii. sayid maxamed cabdulla xasan ayaan qaybta labaad aanu ku eegaynaa kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo labaatankii.
maalintii miililkii baaye la marag furtee muudaa socdee la muquuniye muudaa socdee la muquuniye sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbere ka soo degay 1895kii isagoo xajka ka yimid wuxuu tegey miyiga magaalada berbera isagoo fidinaya diinta islaamka wuxuuna ku wacdin jiray dadkaasi halkaasi sayid maxamed cabdulle xasan wuxuu heshiis dhex dhigay beelihii halkaasi wada deganaa haddii ay coloobaan sidaa awgeed ingiriiska wuxuu sayidka u arkay ugu horrayntiiba inuu yahay nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasilooni ka dhex dhalin kara beelaha soomaaliyeed ku-xigeenka qunsulka ingiriiska ee berbere u fadhiyey wuxuu xiriir joogto ah la lahaa sayid maxamed cabdulle xasan haddii uu miyiga qas ka dhaco ama dagaal ka dhaco waa lala socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray inuu qaskaasi soo dejiyo ama dadkaasi soo heshiisiiyo ingiriisku wuxuu ogaa in sayidku leeyahay xer badan hase yeeshee kamana filayn uu halgan gobonnimo doon ah uu ka bilaabi doono geyiga soomaaliya 1899kii waxaa soo baxay warar tibaaxaya oo magaalada berbera soo gaaray ingiriiskuna uu maqlay in sayidka maxamed cabdulle xasan uu ururinayo rag iyo saanad qabsashada degmooyinka koonfur bari ee gobollada waqooyi waki aynu rabnee kifaaxi isagalle waki aynu rabnee kifaaxi isagalle soomaalay kulliga kulmiya la sudhee kadaba agosto 1899kii waxaa ilaalada ingiriiska sheegtay in sayidka yimid magaalada burco isagoo wata ciidan 5,000 gaaraya oo 1,500 ka mid ah yihiin fardooley islamarkaana 300 oo ka mid ahna haystaan banaadiiq magaalada burca waxay ahayd meel xagga tabaha dagaalka aad uga habboon waayo waxay lahayd biyo joogto ah oo xilli walba la heli karo sayid maxamed cabdulle xasan markii uu yimid si bareer ah ugu dhawaaqay inuu dagaal gobonnimo doon ah ingiriiska uu kula jiro ciidankiisuna wuxuu ku magacaabi jiray daraawiish wuxuuna faray beelaha soomaaliyeed oo idil inay gumaysiga ingiriiska la dagaalamaan sidaa darteed magaalada berbera waxaa soo gaaray warar cabsi leh oo sheegaya in ciidamadii sayidka ku soo dhow yihiin berbera markii ay soo galayeenna ay u gudbi doonaan maalka iyo mawdka shisheeyuhu ku leeyahay berbera ingiriisku waxay sayidka u baxsheen maad mullah oo macnaheedu yahay wadaadkii waalnaa waayo xilligaasi gumaysiga waxa uu u arki jiray ninaan miir qabin oo ismiidaaminaya ayuu u haystay ciddii xoogga ingiriiska uu leeyahay isku dayda inuu ka hor yimaado bishii nofembar 1900 waxaa magaalada berbera yimid gaashaanla sare swayn si uu u hoggaamiyo duulaankii ugu horreeyey ee uu sayidka lagu qaado gaashaanla sare swayn waxaa loo xil saaray inuu dhiso ciidan sayidka laga horgeyn lahaa wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu ingiriiska la lahaa boqorka xabashida waxayna go'aan ku gaareen
in ciidamo huwan ah oo daraawiista dagaal ku qaada oo la diyaariyo waxaana la sameeyey oo ciidankaasi la doonaya in ay daraawiishta baabi'iyaan ingiriisku wuxuu dagaalkan ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo uu ku dhaaran jiray waxaana ka mid ahaa gaashaanle philip dhamme j n armis dhamme c n c cords iyo kuwo kale oo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin markii cornel swain dib ugu soo laabtay berbera waxa uu bixiyey xog waran waxaana aad uu ula yaabay siday naftooda u biimaynayaan daraawiista marnaba uma malaynayn ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta daraawiista heerkani gaarsiisan tahay ayuu yidhi daraawiistu waxay u badan yihiin niman xaasaskooda ciddooda iyo maalkooda ka soo tegey si ay u noqdaan naftooda horayaal waxayna qabaan amar ah in ay dilaan ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha u kacdee iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax ka dilaan in ay gelayaan janno goobihii lasiga hor yimid intii uu dagaalka afraad socday waxaa ka mid ahaa beerdiga cagaarweyne daratoole taargooye iyo jidbaalle 1904 waxaa sayidka iyo ingiriiska dhex maray heshiis oo uu hindisihiisu lahaa wakiilkii talyaaniga ee soomaaliya la odhan jiray besta laze wuxuuna nuxurka qodobada in sayidka la siiyo degaan rasmi ah in sayidka dowladnimo gudaha loo oggolaado in sayidka xornimo iyo madax bannaani ganacsi la siiyo iyo in gobolka nugaal iyo hawd ay noqdaan dhul aan sayidka laga faragelin bishii maarso 1905 ayaa sayidka heshiiskaasi hab ahaan uu u oggolaaday isagoo doonayey inuu helo wakhti uu isku dubarito ciidamadiisa hubnaa uu ku raadsado iyo inuu ku soo kabto khasaarihii ka soo gaaray dagaaladii jidbaale heshiiskaasi markii uu muddo yar dhaqangal noqday ayuu ingiriiska bilaabay inuu hubka ka baaro doonyihii sayidka badeecadaha loogu keeni jiray sayidka wuxuu ingiriiska u diray warqad uu ugu sheegayo inay jebiyeen heshiiskii markii ay baareen doonyihiisii wixii dhibaato ah ee ka dhasha inay iyagu mas-uul ka noqon doonaan wuxuuna sheegay in haddii la doonayo inuu sii socdo heshiiskii besti laze in loo soo celiyo hubka iyo saanaddii laga dhacay sayidka wuxuu si bareer ah uu ugu sheegay ingiriiska mar haddii ay jebiyeen heshiiskii besti laze inuusan isaguna maanta kadib dhowrayn ama uusa sugayn hadalkaasina oo ingiriiska uu u fasirtay in sayidku doonayo inuu soo qaado dagaal hor leh saa darteed ingiriisku wuxuu isku dubaritay ciidan fara badan oo sayidka laga horgeeyo bishii agost 1913 waxaa dhacay dagaalkii dulmadoobe oo ahaa kii lagu dilay taliyihii ciidanka ingiriiska oo la odhan jiray richard corfid oo soomaalida u taqaanay kofi ahaana ninkii sayidku u tiriyey gabaygii caanka ahaa ee adaa kofiyow jiitow dunida joogayne kao halkaasi ku geeriyooday saraakiil fara badan oo ingiriis ah taariikhda halganka dhallinyarada ee syl ee xornimada ay ku dhaliyeen 1960kii waa maalintii miililkii baye la marag furtee
maalintii miililkii baye la marag furtee muudaa socdee la muquuniye muudaa socdee la muquuniye taariikhda aasaaska iyo halgankii xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ee 1943 ilaa iyo 1960 fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxaa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb galaan bulshada sidii loo dhaqan gelin lahaa fikraddaasi fikradda la aasaasay ama lagu aasaasay xisbiga SYL waxaa hormuud ka ahaa Allah u naxariistay Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke oo ahaa xogayihii guud ee ugu horeeyay ee xisbiga SYL yeelto fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxaa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb qaataan bulshada sidii loo dhaqan gelin lahaa fikirkaasi fikraddaasi la aasaasay ama fikradda lagu aasaasay xisbigii SYL waxaa hormuud ka ahaa Allah u naxariistay Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke oo ahaa xogayihii guud ee ugu horeeyay xisbiga SYL yeesho Yaasiin wuxuu ahaa nin fiiro dheer leh oo aqoon-yahan ah lagu tilmaami karo inkastoo uusan dhigan dugsi rasmi ah wuxuuna ahaa nin leh wacyi iyo maskax siyaasadeed ayadoo aan taasi wakhtigaasi dadku u bislayn siyaasadda Yaasiin wuxuu si fiican u yaqiinay afka Talyaaniga maadaama uu karaani ka ahaa wuxuu kaloo yaqiinay afka Carabiga iyo Ingiriiska dadaalka Yaasiin ka sokow curashada fikraddaasi waxaa saaciday arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen wakhtigii la unkay xisbiga wuxuu ahaa wakhti oo lagu jiro dagaalkii labaad ee adduunka dhulka Soomaalida waxaa xilligaasi ka talinayay dawladda Ingiriiska oo jebisay fajiistii Talyaaniga xukunka fajiistaha wuxuu Soomaaliya ku hayay cadaadis iyo caburin xad-dhaaf ah oo leh dhinac kasta dhaqaale bulsho iyo siyaasad xukunkaasi markuu uu dhacayna wuxuu shacabka Soomaaliyeed dareemay nafis waxaana soo gashay yiddiilo iyo waa cusub waxaa wakhtigaasi dalalka Aasiya iyo Afrika ka jiray neecow gobonnimo doon ah oo fanfaniinkeeda soo gaaray Soomaaliya sidoo kale waxaa waagaasi magaalada Xamar ku noolaa nin Talyaani ah oo ka tirsanaa xisbiga hantiwadaagga ee Talyaaniga oo isqarin jiray oo dibadda u soo baxay kadib markii xukunkii fajiistaha uu dhacay oo bilaabay inay cambaareeyaan taliskii fajiistaha ahaa waxayna samaysteen naadi ay ku kulmaan Yaasiinna wuxuu saaxiib la ahaa qaar ka mid ah nimankaasi Talyaaniga ahaa oo ay fikrad iyo isdhaafsan jireen dabadeed Yaasiin wuxuu bilaabay inuu fikradda gobonnimo doonka ah la qaybsado ama uu ku faafiyo bulshada wuxuuna si gaar ah u abbaaray dadkii uu islahaa waa maskax furan yihiin kuwaasoo ay ka mid ahaayeen karaaniyaasha dawladda ganacsatada culimaadudiinka iyo wixii la halmaalaa ama soo raaca maalin maalmaha ka mid ah wuxuu Yaasiin shir ugu qabtay gurigiisa dhalinyaro ilaa 8 gaarisa wuxuuna u soo jeediyey talada ah in la bilaabo dhaqdhaqaaq xornimadoon ah Soomaaliyeed wuxuuna isla markaana ku wargeliyey in 40 dawladood oo waaweyn ee xulafada ahi Mareykanka iyo Ingiriiska Faransiiska iyo Ruushka ay ku adkaatay dagaalkii labaad ay ka tashanayaan aayaha dalalka Talyaaniga gumaysan jiray oo hadda gacantiisa ka soo wareegtay ama ka baxday oo ay ka mid ahaayeen Soomaaliya Eritrea iyo Liibiya wuxuu Yaasiin ku guwaabiyey in fadhiga ay ka kacaan oo marka hore la dhiso urur ka tarjumaya danaha bulshada Soomaaliyeed oo u horseeda xornimo wuxuu kaloo ka codsaday in qof walba uu casuumo qofka uu ku kalsoon yahay
oo ay ka mid ahaayeen ama ay ka mid noqdaan aasaasayaasha ururka waxaaba bilaabatay in qof walba uu casuumo qofka uu ku kalsoon yahay oo ka mid ah ama ka mid noqonaya aasaasayaasha ururka waxaana bilaabatay dhaqdhaqaaqii ururka nin walba wuxuu la xidhiiray qofkii uu yaqaanay uuna ku kalsoonaa waa maalin muran iyo makeeki hadhe waa maalin ilaah haymaashehe an maalo hashe nan maaleeqe muddo bil ah waxaa is-urursaday 13 dhallinyaro oo diyaar u ah inay dhisaan xisbi kuwaasi oo noqday aasaasayaashii xisbiga leegada ee israa'il waxayna kala ahaayeen yaasiin xaaji cismaan cabdiqaadir sheekh saqaawudiin maxamed cismaan baarbe sayidii xirsi nuur maxamed faarax hilowle maxamed cali nuur daa'ir xaaji cismaan xaaji maxamed xuseen khaliif huudow macallin cismaan geedi raage dheer xaaji dheere maxamed cabdalla xayiisi iyo cali xasan maxamed farduura dhallinyaradan waxay ugu horayntii baaqol ka kiraysteen waddada biya rooma ee muqdisho shirar iyo tabaabusho kadib waxaa la soo gaaray xilligii si rasmi ah loo furi lahaa xisbiga loona diiwaangelin lahaa xubnaha xisbiga habeenkii taariikhdu ahayd 15 maajo 1943 ayaa yaasiin xaaji cismaan soo bandhigay barnaamijka xisbiga oo ka koobnaa 13 qodob qodobadaasi waxaa ka mid ahaa 1 in la halgamo lana xaqiijiyo gobonnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed in shanta Soomaaliyeed la mideeyo hal maamul ahna la isugu keeno in xoogga la saaro tacliin gaar ahaan in la dadaalo ama lagu dadaalo waxbarashada dhallinyarada iyadoo tacliintuna muhiim u tahay halganka xornimadoonka oo la'aanteed la gaari karin guul in af Soomaaliga la qoro oo weliba la qaato farta Cusmaaniyiinta iyadoo loo arkayo inay tahay mid wadani ah in shacabka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo halganka xornimada ama halganka xornimadoonka ah iyo madax bannaanida in la tirtiro caadooyinka iyo dhaqamada foosha xun oo ay ka midka yihiin qabyaaladda quursiga iyo iskala-takoorka iyo wixii la mid ah qodobada horay waxay badi ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga qodobada ugu horeeya badidood waxa ay ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga yaasiin wuxuu isla fadhigaasi soo jeediyey in la doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen yaasiin wuxuu isla fadhigaa soo jeediyey in la doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen wuxuuna ku teliyey in labadaa jago loo dooran doono xubno ka soo jeeda qabiilada waaweyn si looga hortago tartan iyo awood sheegasho qabiil oo mustaqbalka wiiqi karta xisbiga halgankana curyaamin karta iyadoo taladaasi la tixgelinayo ayaa waxaa la doortay laba mudane cabdiqaadir sheekh saqaawudiin guddoomiye xaaji maxamed xuseen guddoomiye ku-xigeen yaasiin waxaa loo doortay xogayaha guud ee xisbiga waxaana kaloo la go'aansaday inaan durbadiiba la soo bandhigin ujeeddada siyaasadeed ee xisbiga ilaa iyo intuu ka hana qaadayo saa darteed waxaa xisbiga loo bixiyey magaca naadiga dhallinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Club waxaana sidaasi loo yeelay in maamulka Ingiriiska loo tuso xisbi inuu yahay naadi dhallinyaro oo u go'an arrimaha bulshada iyo dhaqanka si looga gaashaanto caqabadaha iyo dhibaatada ka iman karta xaggiisa subaxii 15 maajo 1943 waxaa guddoomiyaha xisbiga mudane cabdiqaadir sheekh saqaawudiin iyo xubno ay wehelinayaan tageen
xafiiska dhiisiga ingiriiska markuu akhriyey codsiga wuxuu yidhi waa idin oggolaaday inaad naadi furan kartaan waayo annagu waxaannu nahay dawlad dimuqraadi ah waxaase idinkaga digayaa inaadan samaynin haba yaraatee wax dhibaato u keeni kara amniga iyo xasilloonida dalka iyaguna waa ay ka aqbaleen kadib wuxuu xisbiga qol ka kiraystay daar u dhow 4 irdood xamar weyne wuxuuna adeegsaday fasallo lagu barto farta cusmaaniyiinta afka carabiga iyo ingiriiska waxayna qoreen macallimiin suudaan ah oo duruusta carabiga iyo ingiriiska ku bixiya sidoo kale waxaa qolalkaasi ay u isticmaali jireen xarunta xisbiga iyo maqaayad shaaha iyo kafeega ah oo lacag jaban lagaga qaado xubnaha xisbiga iyo weliba meel lagu dhegaysto raadiyaha laguna akhristo jaraa'idka si loola socdo akhbaarta adduunka dabadeedna xisbiga israa'iil uu ku dhaqaaqay talooyinkaasi kala duwan ee bulshada soomaaliyeed sida dhallinyarada culimmada odayaasha dumarka iyo wixii la mid ah horumarka xisbiga uu ku tallaabsaday sanooyinkaasi wuxuu ahaa mid la yaab leh oo mucjiso ahaa oo aan taariikhdiisa halkan lagu soo koobi karin bishii maaj 1947 waxaa xisbigu go'aansaday in isbeddello lagu sameeyo magaca xisbiga SYL lana muujiyo awooddiisa sababaha soo socda awgeed xisbiga oo xidadaystay oo shacabka dhexdiisa ka kasbaday kalsooni adag oo aan la loodin karin gumaystaha ingiriiska ayaa ka dhawaajiyey inuu doonayo ama uu rabo in Soomaaliya oo idil loo wada dhiibo xornimadeeda ama la siiyo halka gumaystaha Talyaaniga oo xusul duubaya oo doonaya in loo soo celiyo maamulkiisii Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ومالين مورن إيو ما كيكي هاري ومالين إلا هاي ما شيء أن مالو خشي أن ماليقي asxaab siyaasadeed oo Soomaali ah oo ku salaysan hab qabiil gacan saarna la leh quwadaha shisheeye oo xisbigii SYC laga horkeenayay goor galab ah 1947 ayaa waxaa xisbigu qabtay shir lagu casuumay Soomaali iyo ajnabiba waxaana halkaasi khudbad ka soo jeediyey isaga oo ku hadlaya magaca xisbiga Yuusuf Xaaji Cismaan wuxuuna ku dhawaaqay in xisbiga oo markii hore ahaa SYC loo bixiyey SYL uuna yahay xisbi siyaasi ah oo u halgamaya xornimada ummadda Soomaaliyeed oo idil dagaalna kula jira gumaysiga ayaama kadib amar alle waxaa aad u xanuunsaday yaasiin xaaji cismaan jiro loo maleeyey inay tahay malaariyo markuu dareemay inay jiradiisu culus tahay wuxuu ku dardaarmay in jegadiisa loo dhiibo cabdulaahi ciise maxamuud oo markaa madax ka ahaa faraca xisbiga ee beledweyne oo ay wada shaqayn jireen waxaana laga aqbalay taladiisa maalmo kadibna yaasiin waa uu geeriyooday allah u naxariistee cabdulaahi ciise meeshii ayuu hawshii xisbiga ka sii waday wuxuuna xisbiga iyo shacabka Soomaaliyeed ugu adeegay si naftii horenimo ah daacad iyo Soomaalinimo wuxuuna guul u soo hoyay siyaasadda iyo halganka gudaha iyo dibadda
salaad ciise wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee xukuumadda daaqiliga ah ee soomaaliya sannaddii 1960kii haddaan dib ugu noqonno taariikhda 1947kii waxaa dhacday in xiisadda siyaasadeed aad u kululaatay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dawladda ingiriiska oo la odhan jiray bevin uu u soo jeediyey in dhulka soomaaliyeed oo idil marka laga reebo jabuuti ingiriiska gacanta oo ku hayo loona sameeyo hal maamul oo ingiriiska hoos yimaada qaramada midoobay kor ka ilaaliso waxaana qorshahaasi ingiriiska ka soo hor jeestay ruushka iyo maraykanka balse hindisahaasi leegadu way soo dhowaysay iyadoo u aragtay in midaynta dhulka soomaaliyeed ay qayb ka qaadanayso dhinaca kale talyaaniga oo ka ficil qaadanaya hindisaha ingiriiska damac weynna ka galay qabsiga soomaaliya ayaa dardar cusub geliyey dadaalkiisii uu ugu jiray inuu carriga soomaaliya gacanta ku dhigo mar kale dhammaadkii 1947kii waxaa lagu soo wargeliyey xisbiga israa'el inuu xamar imaanayo guddi ka socda afarta quwadood ee maraykanka ingiriiska faransiiska iyo ruushka muhiimmadda guddigaasi waxay ahayd xaqiiqo raadin iyo inuu u kuurgelayo rabitaanka iyo himilada siyaasadeed ee shacabka soomaaliyeed ay ku doonayaan quwadood waxa uu yimid xamar 6dii bishii janaayo 1948kii waxaana loo qorsheeyey in urur siyaasadeed walba uu dhoolatus ku maro guddiga hortiisa oo ahayd halka hotel curubo ay hadda tahay oo waagaasi ahayd xarunta dhiisiga ingiriiska waxaa buuq sawaxan iyo dhoolatus isku daray axsaab iyo kooxo soomaaliyeed oo talyaanigu maalgeliyey oo meel kasta la maraya calaamo talyaani ah iyagoo ku dhawaaqaya talyaani arrintaa markay dhacday waxaa xisbiga leegada uu codsaday in maalin gaar ah la siiyo oo cudadooda ay ku muujinayaan balse waxaa laga wareelay in kooxihii ka soo horjeeday rabaan inay carqaladeeyaan bannaanbaxa iyo dhoolatuska leegada dabadeed xisbiga leegada markii uu darsay xaaladda wuxuu go'aansaday in haddii la carqaladeeyo dhoolatuskooda inay weerar ku qaadaan oo toos ah u abbaaraan talyaaniga oo ahaa kan soo diyaariyey kooxaha soomaalida subaxii 11 janaayo 1948kii waxaa xarunta leegada lagu reebay 5 dhallinyaro ah horseed ah iyo qaar dumar ah intoodii kale waxay abaabuleen bannaanbax ayagoo ku jira hawshii abaabulka ayaa soo gaartay qaylo dhaan ah in la soo weeraray xaruntoodii xisbiga ayna soo weerareen kooxihii soomaalida ee talyaaniga taageerayey soona diray intaa kadib taageerayaashii leegada waxay isku qaybiyeen qaar difaac ka gala xarunta xisbiga iyo qaar weerar ku qaada talyaaniga weerarkii maalinta waxaa lagu dilay 54 talyaani ah 55 kalena waa lagu dhaawacay xisbiga leegada waxaa gacan siiyey askartii soomaalida ee ingiriiska u shaqaynaysay oo hoos leego ka ahaa dagaalka waxaa leegada kaga dhintay xaawo cismaan xaawataako xaruntii leegada markaa waxaa ay ku taallay ka soo horjeedka meesha hadda laga dhisay taalada xaawataako haddana ah meesha maktabadda qaranka ku taalla bishii Sebtembar 1949kii waxaa furmay kalfadhigii qaramada midoobay fadhigaasina waxaa
la sugayey inuu go'aan ka gaaro aayatiinka dalalkii talyaaniga gumaysan jiray oo soomaaliya ay ka mid ahayd xisbigii s y l wuxuu xarunta qaramada midoobay u diray allah u naxariistee cabdulaahi ciise maxamuud si uu u cabbiro mowqifka xisbiga leegada oo ahaa in 4 qubadood ay wadajir u maamulaan soomaaliya xornimada ku gaarsiiyaan muddo 10 sano ah iyo inaan marnaba dalka lagu soo celin talyaani bishii oktoobar horaanteedii 1949 waxaa la helay warar muujinaya in soomaaliya loo dhiibi rabo talyaaniga waxaa xisbiga leegada uu sameeyey mudaaharaad ka dhan ah talyaaniga laguna qabtay goobta loo yaqaano dhagaxtuur ingiriiska wuxuu soo diray askartiisii oo uu amar ku bixiyey in 15 daqiiqo gudahood dadka mudaaharaadaya ay ku kala direeriyaan hase yeeshee lagama yeelin balse waxaa loogu jawaabay dhagaxtuur askartii lagu asqeeyey dabadeedna askartii waxay dadkii ku fureen xabado waxaana halkaa ku dhintay 2 qof waxaana ku dhaawacmay 50 qof oo 4 yihiin booliskii ingiriiska dagaalkaasina wuxuu la magac baxay dagaalkii dhagaxtuur 5 Oktoobar 1949 maamulka ingiriiska intaa kuma ekaan waxa uu musaafiriis ku xukumay qaar ka mid ah madaxda xisbiga leegada waxaana magaalada ceelbuur loo diray daahir xaaji cusmaan daahir dhegaweyne maxamed maalin guur cali xirsi maxamed otawa iyo xaaji diiriye xirsi 11 bishii November 1949 waxaa golaha guud ee qaramada midoobay soo saaray go'aankiisii ahaa in Soomaaliya loo dhiibo maamul Talyaani oo 10 sano gobonnimo ku gaarsiiya qaramada midoobayna kor ka ilaalinayso bishii Abriil 1950 ayaa maamulka Talyaaniga la wareegay xilkii Soomaaliya waxaana Talyaaniga weelinayay guddi ka kooban 3 dal oo kala ah Masar, Filibiin iyo Colombia oo wakiil ka ahaa qaramada midoobay ilaalinayana sida Talyaaniga uu u fuliyo hawsha lagu aaminay Talyaaniga wuxuu isku dayay inuu kala qaybiyo Soomaaliya kala gado xoojiyo qabyaalada xisbiga leegadana laaluso abuuro axsaab uu ku adeegto si uu u dheeraysto muddada loo qabtay inuu Soomaaliya xornimo ku gaarsiiyo isagoo guddiga 3 dawladood u tusaya inay Soomaalidu sidaan rabaan qorshahaasi waxaa si aan gabasho lahayn u hor istaagay xisbiga leegada oo beeniyey kana dhaadhiciyey guddigii 3 ahaa dawladood in Talyaanigu doonayo inuu waqtiga dheeraysto kadib 1952 waxaa dhacday in Talyaaniga xirxiray qaar ka mid ah madaxdii xisbiga ee Kismaayo arrintaana waxaa xisbiga uu ka sameeyey mudaaharaad rabshadana ka dhigay waxaana lagu dilay nin Talyaani ah xisbigii leegadu waxa uu sii waday halgankiisii ilaa uu ku guulaysto doorashooyinkii dawladda hoose ee la qabtay 1954 markaasi ayaa Talyaaniga uu quustay oo bedelay siyaasaddiisii hore dantuna ku kaliftay inuu soo dhoweeyo xisbiga leegada ee wakiilka ka ah danta Soomaalida ee xornimadoonka ah waxaa farxad weyn ahayd 12 Oktoobar 1954 markii la taagay calanka Soomaaliyeed farshaxankiisa iyo hindisihiisa uu lahaa Allah u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan oo ka mid ahaa madaxda xisbiga leegada waxaa calankaasi laga taagay xarunta qaramada midoobay ee New York sanadkii 1956 waxaa la qabtay doorashadii siyaasadeed ee ugu horeysay oo dalka ka dhacda waxaana aqlabiyad kuraasta ku guulaystay xisbigii leegada oo dhammayd 70 kursi waxaana la dhisay xukuumad daaqili ah oo uu ra'iisul wasaare ka yahay Cabdulaahi Ciise Maxamuud
xogayihii guud ee xisbiga leegada bishii maarso 1959 waxaa mar kale la qabtay doorashadii labaad ee siyaasadeed iyadoo tirada kuraasta laga dhigay 90 kursi oo dhammaanba Soomaali yihiin waxaa mar kale doorashada ku guuleystay xisbiga leegada kuraasta inteeda badan waxaana mar kale loo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo hayay ilaa iyo 1960 markii xornimada la qaatay halkii xisbiga leegada wuxuu ku soo gabagaboobay guushii xorriyadda 1 Luulyo 1960 iyo israaci labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana mahadeeda iska leh labada xisbi ee SYL iyo SNC oo gobolada waqooyi ka halgamayay sidii gobonimo loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ee Ingiriiska gumaysanayay kuwaasoo gobonimadoodii qaatay 16 Juun 1960 maalintii dunida madow milix soo baxdee waa maalintii dunida madow milix soo baxdee mugdigii leys mudanow dhaxlee mugdigii leys mudanow dhaxlee intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu kaga hadlaynay maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo aanu kaga hadalnay taariikhda halganka xorriyadda Soomaaliyeed 1520 ilaa iyo 1960 intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalintii dunida madow milix soo baxdee waa maalintii dunida madow milix soo baxdee mugdigii leys mudanow dhaxlee mugdigii leys mudanow dhaxlee